Bismillah. Waan islaam umada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan dal iyo dibadba. Anigoo ah Axmed Maxamed Nuur, kana mid ah dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir qaasatan Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaato iga haysatay dhanka timo daadashada ama bidaarta, taasoo waqti dheer aniga ay haysatay oo la dhibanay ilaa iyo 4 sano 5 sano ka hor igu bilaabatay intii goodo ama ay daadato. Anoo intii la dhibano dhaahani oo baashan hal mal xilaa maalmaha kamid ah yara saaxiibanahay waxaan arkay asana oo dadka bidaarta leh ahayo baartay dalka ma jira ku jiro tinta loo jaraa ninkii aqaanay markaas yarkii waa fiiriyay anoo fiirinayo arkoni waxa iga fiirinaysa markaas waxaan anigu ninkii soo hebel soo intii walaalaatiin inuu aniga waa maxaan ku wadahayo marka arintii ka wareystay markaas wuxuu dhahay tintaan qolaas Banaadir online shopping keentay saliid tinta lagu daweeyo oo tinta ay ku soo laabayso wili waqti gaaban oo bilooyin ah iyo nakana ku meeshii Banaadir online shopping xaruntooda imaanay markaa imaanay waqtigaas waxay daawooyin daawooyinkii sharaxeen saliidii ahayd markay sharaxeen qaabka loo isticmaalayo subaxdii iyo habeenkii oo kaleeto ay isticmaalay labadaas waqti haddii ay heli kartiin doorada ku darso kale ay dhaheen oo ku darsan jiray daawooyinkii waa si sheegana isticmaal alxamdulillah way dhamaatay maantana wajidta saana wajidina ahay maartay tintu way soo laabatay marka dadka dhalinyarada oo asxaabtayda oo kaleeto wax ku tala lahay inay iyagana saliidas isticmaalaan ay tagaan Banaadir online shopping ay tagaan ay ka soo adeegtaan qaabkii loo isticmaalayo meesha loogu sharaxaa